بسم الله الرحمن الرحيم نبضي داود يال كسر دوّادة برنامج شاندين كدياري مركب كدوان بربري مئة بولاركتي دوينها كل رقم طلقنا فرانسيس كغير سومالي لان يجوا أركتيه كل دوان كديب تيبل مركب كاس سنة ده هو بكسيدي يسيد أيو أركان عن كبلا وبربر كي جاء أنا كبلا بيا كسر دوّورة البرنامج كهاي دوينها يعني مركب كاس أديو كبلا بيا مقعد يال كتبت بالرأي جاي magacayga waa Musaale Cabdi waxaan ka mid ahay jaaliyada Soomaaliland Fransiiska gaar ahaan gobolka Baydhabo markabkaas hadii aan rayigay ka dhiibso waa aad baan ugu faraxsanahay saaka hubkii laga rogay markabka in badan waan suganay in markabka laga dejiyo aadna waan ugu hambaynaynaa xukuumadda aan ku xigsiyo markayga kale waxa taagan nin kale oo isna kamid ah jaaliyada reer Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Fransiiska kusoo dhawaada barnaamijka adiga ku bilaabaya magacaaga iyo ra'yigaaga بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Jaal anigoo kamid ah jaaliyada waddanka Faransiiska gaar ahaan gobolka Baydhabo magaaladiisa Angeles waxaan raygan ka qabo markabkii ku soo xidhay dekedda caalamiga waxaan ka qabaa in sasanka culusi dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay gacanta ku dhigtay in dawladda Soomaaliland ama ay u gudbisay qaramada midoobay iyo beesha caalamka ama ay haysato hubkeeda hubka sharci darrada ay ku soo galay gacanteeda u soo galay ibadeeda soo galay marka fikirka ka qaba waa inta ku soo dhaweeyo inaan kale oo isdhinacayga taagan ku soo dhawaada barnaamijka adiga ku bilaabaya magacaaga kuna xigsiinaya ra'yiga aad ka qabto markabkaas uu laga rogay waa dhawahay Jamaal hadaan ra'yiga ka dhiibto markabka la qabtay horta uu dhaca qaladka qaladaadka badda uu dhaca waxa maritime errorska marka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maamulka dekedda ku mahadsan yihiin inay qabtaan waajibkoodina way guteen wana bilaash Soomaaliland soo gacan galay waxaan rajaynayaa in la marin doono xeerka dee uu yaala xeerka badda wana soo dhaweynayaa wana ku mahadsan yihiin haddii aan su'aal kale ku weydiiyo oo baliyana hadda sidaad u aragto oo khusaysa waxaa jirtay in markabku aan ahayn markab dagaal ee waxa markab sidii maciishad iyo qalabaad kale oo markii lagu rigo hubka loo arkay si lama filaana arkaa isaga saad u aragtaa aad Jamaal arrinkan waxaan u arkaa horta meesha waxa ku jira qalad baa ku jira waa markab maciishad sida oo laakiin hubna ku qarsoon yahay marka dawladdu waxa leedahay noqonaya marka indhaha quraanshada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba kuwa dekedda waxay markiiba qabteen markabka dushana raashinka hoostana hubka marka waxaan u arkaa inay waajibkoodii guteen meeshana qalad la islaamka meesha ku mariya la qabtay wana ku saxan aad iyo aad buu aadana u mahadsiyahay aad iyo aad u badan yihiin dadyoga halkan degan ama qasa ka qayb qaatay barnaamijkani anigoo ku xigsiinaya ku soo dhawow walaal barnaamijka ra'yiga dadweynaha ee markabkaas adigoo wal magacaaga ku bilaabay magacaygu waa Fattax Rashiid Cali aad baan taxsanahay markab hal qabtay way sababtoo ah aan horta waxaan kamid ahay dhalinyarada jaaliyada ee gobolka Faransiiska ee gobolka Baydhabo marka waxaan leeyahay xukuumadda iyo dawladda aad baan taxsanay marka yalla dhibi hubkiisa yalla dhibi aan ugu dhaay oo xukuumadda haysto hubka inaga lahayn inagana xaq u leh aad iyo aad buu Cabdi Fattax mahadsan yahay mid dhawaa marka hore magacaygu aniga Maxamed Abdi magac darshiine waxaan anigu ra'yigayga haddaan arko ka dhiibto fikradeyda ah marka Soomaaliland qabatay hubka waxaan aaminsanahay horta inay tahay tallaabo wanaagsan loo eego dhinaca ammaanka dhinaca taxadarka ciidamada Soomaaliland iyo dhinaca badda caalamka oo dhan loo eego waa tallaabada ah sidoo aragtay fiican marka Soomaaliland qabatay waxaan ugu arkay in Soomaaliland la wareegto maadaama ay qabatay إن يقعديه حركة عالمك هاي دونك يو قوانين عالمك بعدين بدل السبيل صار ورقته هي أمان وتكمل على الحرية يتفقار حيجي شيء إن هوش الصف عن بعضي بعدين كي يحقق هذه يسيس القوة الكسوق على وحصلوا كلا بعدين إنه قاعدين مركب كاي يهوكاس كوشر إنترنت سومالي كسوق استنا سومالي ممكن كويس مركب أنا فكرة هاي واحد سوي كذي يعني جواه مواد في سومالي لنا جوجا جعل وطنكيه marka in Soomaaliland uu kala wareegto sida ku qaato aad iyo aad Maxamed ugu mahadsantahay fikirkaaga بسم الله الرحمن الرحيم anigoo ah Cali Shariif deegaanka Faransiiska waxaan ra'yigayga ka dhiibanayaa oo fikir ahaan layga weydiiyay hubkan ku soo xidhay Soomaaliland markabka la sheegayo ee khaladka ku yimid dalka ayaa ra'yigayga laga weydiiyay inaan wax ka idhaahdo aniga ra'yigayga waxaan oranayaa horta marka hore markabkan waan cambaaraynaya halkii sooraane marka xiga waxaan leeyahay hubkan waa hub ay Soomaaliland u baahnayd
waa hub haddii qiimihiisa aan qiimayno 50 milyan lagu kiciyo haddii nasoo soo iibso hubkan waxa u baahan ciidanka u baahan qaranka u baahan anigu ra'yigayga waxaan qabaa in waabi igu raago maalin kasta waxaan ka akhristaa muxuu ahaa website-dada ka akhristaa ma lala wareegay iyo lama wareegin maalmo bas salaataro waxaan ugu ra'yigayga ka dhigay hubka ay dawladdu la wareegto gacan biran ay ku qabato sidaasna ciidamada loogu qaybiyo wixii laga daba qayliyana halkooda lagu baqtiyo